dhinaca kale sarkaal ka tirsan maamulka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in 31 qof la dilay kadib markii ciidanka Liyo Police ay weerareen deegaano ay dadkaasi ku noolaayeen. dadkan ay dhibaatadu gaartay ayaa la sheegay in ay yihiin dad rayid ah. Haddaba Maxamed Cadde ayaa telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha jaaliyadda Oromada ee dalka Canada, waxaana uu weydiiyay iyadoo magaciisa la yiraahdo Axmed Mudiir sida ay wax u dhaceen. anigoo ah gudoomiyaha Oromada ee magaalada Saskatoon ayaa waxaan ku cadeynayaa in maalintii shalay oo Arbacada ahayd xilligii saacadu ay tahay 12 saac ee subaxnimo weerar ay soo qaadeen ciidanka ama booliska la yiraahdo Liyo Haile ee Soomaalida ee deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas ay waxay ku laayeen dad rayid ah shacab ah waxba galabsanin haween iyo caruur iyo dad gaaraya ilaa 33 qof ay dileen ay la sheegay ma garad. maxay tahay sababta weerarka loo soo qaaday? marka aan weydiinay waxay sheegayaan dadka sababta ma garanayno laakiin baryahan dambe kadib markii dawladda federaalka faragelin ay ku sameysay deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa baraha bulshada dad dagaal abaabuliyaalka oogeen sabab u noqdeen xiisad colaadeed abuureen weligood bay nimankan Liyo booliska loo yaqaano dagaalka ay wadeen xuduud ay weerari jireen sababta ay iminka ku soo aadiyeen runtii lama garanayo weligoodna waxay ka soo horjeedeen isbedelka cusub ee hadda Itoobiya ka socdo dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ay ka soo horjeedaan taasum baa loo saabsanaya ma garad. maxaa lagu cadeyn karaa in weerarkan dadka soo qaaday ay yihiin police sida adigu dhigayso? kadib markaa anagu aan telefoon aan u diray oo aan wareysanay dadkii goobjooga ahaa ee dhiiga gacanta ku hayay meedadka wadooyinka ka aruurinayay waxay arkayaan iyagoo dharkoodii ee Liyo booliska qabaan sidii hore loo yaqaanay af Soomaaliga iyagoo ku hadlaya oo cararaya oo xabada ridaya ayay inoo sheegeen ay xaqiijiyeen waa la yaqaanaa dhowr jeer bay weerarka soo qaadeen maalin waxay ahayd oo afka Oromada lagu yiraahdo oo gabay oo dad fara badan isku imaanayaan suuqa ay ku jiraan ayay weerarkaas soo qaadeen oo cid kasta way garanayaan meelo badan dhowr magaalo ayay weerar ku qaadeen 5 magaalo ayaa la sheegaya weerarka ku qaadeen waxaanu la xiriiray dadka odayaasha iyo lamaawdiinka iyo ganacsatada dadka halka degan ayaanu la xiriiray waxay noo soo direen oo intaheena aan ku aragnay dad gaaraya ilaa 33 oo baraha bulshada inoo dhigeen meedadkooda isdul saaran oo frinjiteer lagu aruurinayay oo hal saf oo la galiyay indhahayga ayaan ku arkay oo video ayaan hadda aan haynaa. dhibaatada qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ka dhex taagan waxay u muuqataa labada dhinacba in ay cabashooyin muujinayaan qolo walba qolada kala farta ku taagayso in ay dhibka wado. adiga maxaad uga jawaabaysaa? arrintaas runtii waxay tahay way jirtaa waa sida aad u dhigtay waxaan u aragnaa arrintaasi colaad ama cadowtinimo kama dhaxayso labada shacab oo dad walaalo ah weligood ay wada degi jiray cadow ama shirqool cadow uu dhex dhigay ayaa halkaasi suntiiba halkaa ku jirta suntii dadka sunta aaminsan dad Soomaali waxay aaminsan yihiin in Oromada dhulka ay ka qaadanayso Oromadana waxay aaminsan tahay in ay Soomaalidu isbedelkan